Mararka qaarkood waxaad wax walba ka raadsan kartaa internetka, sidaas daraaddeed waxaad baaritaankaas ku arki kartaa mowduucyo aad la yaabto kuwaasoo saameyn ballaaran ku yeelan karo dareenkaaga. Ma doonayo in aan hadalkayga sii dheereeyo. Daawadaha qaaliga ahow, waxaa maalin igu dhacday anigoo raadinaya taariikh nololeedka jilaaga lagu magacaabo George Clooney si aan ugu soo diyaarsho mowduuc aan u soo geliyo YouTube-ka, laakiin Google-ha wuxuu u beddelay George Barrot. Maqaalka oo ii soo saaray ciwaankiisu wuxuu ahaa ninkii sanka weynaa dembiga iyo ciqaabta lahaa. George Barrot lama oga halka uu ku dhashay iyo wakhtiga uu dhashay, sidoo kalena lama oga sida uu u noolaa carruurnimadiisa, laakiin waxaa la ogaa in uu noolaa uuna dhashay qarnigii 19aad. Asxaabta qaaliga ah, waxaad isdhihi doontaan maxay tahay faa'iidada aan ninkan la aqoon qisadiisa aad u soo bandhigteen, laakiin xiiso ma laha mowduuca noloshiisa inta uu noolaa, laakiin waxa xiisaha u yeelayo qisadiisu waa dhimashadiisa kadib. George wuxuu madax u ahaa koox burcad ah, wuxuuna ahaa ninkii ugu horeeyey wargeys lagu qoray 1878 kadib markii uu ku guulaystay dhac uu ku qaaday tariin ay leeyihiin Union Pacific Railroad, taasoo Barrot ku kaliftay in uu baxsado. Koox baarayaal ah ayaa ballan qaaday in ay cadaaladda horkeeni doonaan burcadkaasi. Raacdo bilooyin qaadatay kadib, waxay ugu dambeyntii tageen buurtii uu isku qarinayay Barrot, waxayna ku taalay galbeedka Mareykanka. Laakiin wuu baxsaday Barrot isagoo laayay kooxdii baarayaasha ahaa, kadibna si degdeg ah ayuu u aasay, waa uuna cararay. Wuxuu go'aansaday inay beddelaan asiga iyo burcadii kale meeshii ay ku dhuumanayeen. Muddo kadib, meedadkii baarayaasha ayaa la helay, waxaana la duldhigay lacag 10,000 ah ciddii soo sheegta Barrot. Maalmo kadibna abaalmarintii 20,000 ayaa laga dhigay. Sanado badan kadib, markii uu sii waday Barrot falalkiisii dhaca ahaa iyo dambiyadii badnaa ee u qarsoonaa, maalin maalmaha ka mid ah Barrot iyo kooxdiisii waxay galeen baar, waxayna cabeen khamri aad u badan ilaa ay waayeen dareenkooda. Waxayna bilaabeen in ay ku faanaan dambiyadii ay galeen, iyagoo caddaystay falalkii burcadnimada ay sameeyeen. Sidaas daraaddeed, booliskii ayaa la bacay, kooxdiina waa la xiray, waxaana lagu xukumay Barrot dil isagoo lagu xiray magaalada Rawlins. Barrot sheekadiisii meesha kumay dhammaan. Dhimashadii Barrot kadib, qofna uma imaan jirkiisa, sidoo kalena cidna sooma sheegan. Laakiin Dr. John Osborne ayaa wuxuu daneynayay in uu qaado jirka si uu cilmi baaris ugu sameeyo. Wuxuu rabay in uu ogaado maskaxda dadka caadiga iyo kuwa burcadda, laakiin baaristiisii waa uu ku guuldareystay maadaama maskaxdii Barrot ay faa'iido u lahayn qaybtii kore madaxa. Waxa uu siiyey kalkaalisadiisa Lillian, taasoo ahayd 15 jir, markii dambena noqotay dhakhtarad dumar ah, midii ugu horeysay oo ka shaqeysa gobolka Wyoming ee waddanka Mareykanka. Waxaa la sheegaa in Lillian u isticmaashay qalfoofkii madaxa ahaa keedinta qalimada. Dhanka kale, Osborne wuxuu jirkii Barrot ka samaystay waxaan caadi ahayn, taasoo ah maaskaro laga sameeyey jirkii Barrot. Maaskaradaasina waxaa loogu magac daray wejigii dhimashada. Sidoo kalena, ditoorkii wuxuu u tagay kaba sameeye si uu maqaarkii Barrot kaba ugu samaysto, inta soo hartana boorso loogu sameeyo. Intii kale ee Barrot jirkiisa ka mid ahayd waxaa lagu tuuray fuusto ay cusbo ku jiraan. Sanado badan kadib, dhakhtarkii wuu dhintay. Dadka badigiina way ilaaween magaca Barrot iyo sheekada kabaha. Laakiin sanadkii 1950, ayadoo la dayactirayo bangi ku yaalo magaalada Rawlins, fuusto ayaa waxaa laga helay lafo bini'aadin iyo qalfoof ay qaybta sare ka maqan yihiin iyo kaba maqaar ka samaysan. Odaygii magaalada ayaa soo xasuustay markiiba sheekada Barrot. Dr. Lillian oo hadda 80 jir ah ayaa loo wacay, taasoo heesay
daboolka sare ee madaxa Barrett maadaama uu horay u siiyay Dr. Osborn markii ay kalkaalisada ahayd waxaana la sameeyay baaritaan lagu hubinayo kabaha waxaana lagu ogaaday in ay maqaarkii Barrett ka samaysan yihiin laakiin markii ay heleen meedkii Barrett ma aysan aasin maadaama ay geeyeen meel matxaf ah si ay bulshada ugu soo bandhigaan ugu dambeyntii muuqaalkeen maanta halkan ayuu ku egahay muuqaalkan kan xiga ayaa inoo balan ah. Wassalaamu calaykum.